xarunta la dagaalanka ayaxa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halkan waa magaalada Qardho xaruntanna waa heer qaran waa meel loo baahnaa xilli loo baahnaana ku soo aaday horumarada dalka ka socda ayay ka mid tahay waxay ka taraysaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha badbaadinta deegaanka iyo xataa landscape-ka waddanka waxay difaacaysaa oo ogaanaysaa xaruntan marka uu ayaxu soo galiyo Soomaaliya isla markaana agabkii lagaga hortagi lahaa lagu weerari lahaa lagu baabiin lahaa ayaa la soo dhigi doonaa haddii alla idmo hadda meeshu waa qabiyo waanu gargaraacnay waa cidla waa nabadgelyo qofna ma joogo meeshaas waxay ka mid tahay nabadgelyada ka jirta Puntland shirkaddan inta leeg yani waa cidla yani halkan inaan gudaha soo dubnay ayaan rabnay oo macluumaad badan ka soo diyaarino laakiin waa noo suuroobi weyday waa cidla waxaan idin sheegayaa horumarka ka socda dalka ayay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha ayay wax ka taraysaa arrintan waddankeena waxa ragaadiyay ayax 2 sano the last 2 years waxba lama beeran wixii la beertan ayax baa cunay dhulkiina wuxuu ka dhigay baabaha waa qalajiyay ayaxu waa cadow ummadda Soomaaliyeed oo dhan sanadkii waxay beeratay iyo sanadkii ka horeeyayba ayuu baabi'iyay laakiin insha Allah waxaan ugu bashaareynaa dadka Soomaaliyeed in ay beerahooda si nabadgelyo ah u beeran doonaan wixii ka bilaabma sanadka 2023 waxaa mahadaan la soo koobi karin iska leh Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo arrintan ku guuleeyay dowladda Puntland waxaa kale oo mahad iska leh madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo arrintan xil weyn iska saaray waa caaqilkii hadal caatay waalid shargareeya fiidiyowga walaalayaal gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed meel buu joogo ay joogto madaxweynaha Puntland mar walba wuxuu iska saaray xil sidii uu horumar lahaa dalkiisa iyo dadkiisa waa mahadsantihiin